daawadayaal waxaynu wada ognahay berri wixii dhacaya inuu garanayo ilaahay oo keliyihii. innagu waxaynu nahay dad muslimiin ah, aaminsanna diinta iyo tan keliya ilaahay agtiisa ka sugnaatay, iyaduna ay tahay midina faraysa inoona sheegaysaa mustaqbalka waxa dhici doona inuu ogyahay ilaahay oo keliya. sidaasoo ay tahay waxaa jira dadyow ankee markii lagu daro kuwo muslimiinihii inay isku dayaan mustaqbalka inay saadaaliyaan. barnaamijkeennan maalinimada maantaana waxa uu noqonayaa midaynu ku qaadaadhigayno saadaasha, qaabka ay u sameeyaan iyo wixii laga bartay saadaalihii hore dadyogu ay u sheegeen. barnaamijkeennani ma noqon doono midaynu arrintaa dhanka diinta ka eegno, maadaama innagu aynan aqoon weyn u lahayn arrintaa diintana waxaynu u daynaynaa daawadayaasha kanaalkeenna ku xidhan ee iyagu diinta sida weyn u garanaya, innagoo ilaahay ka baryaynaa inuu innagana ina baro. haddaba daawadayaal, saadaasha ay dadyogu isku dayaan inay saadaaliyaan waxa berri dhici doonaa ayaa waxay ahayd mid weligeedba adduunka ka soo jirtay. dadyowga kala duwan diimaha iyo dhaqannadii doonaanba ha kala haysteene waxay ahaayeen kuwo saadaasha isku daya, jecelna mar walba inay sii ogaadaan, isuguna faanaan waxa dhici doona berri. inkastoo ilaahay qur-aankiisa inoogu sheegay waxaynan aqoonta u lahayn inaynu weydiinno dadka aqoonta u leh, haddana arrimaha mustaqbalku waa kuwo ilaahay u gaaraa oo aanay cid kale shirkad kula ahayn. sidaasoo ay tahay arrintaasu ma noqon mid ay ka tanaasulaan dadyow badan oo ankii ay ku jiraan dadkeenna muslimiinta ahi. saadaalinta ay dadku wax saadaaliyaan ayaynu u kala qaadaynaa dhowr nooc oo iyaguna qaybo badan u sii kala qaybsami doonaa. aynu ku horraynno saadaasha qaybteeda aynu wada ognahay inay tahay tan dembiga weyn uu ku jiro, waana tan ay isticmaalaan dadka loogu yeedho faaliyayaashu. waa dadyow iyagu dadyowga lacag kaga qaataa inay u sheegi doonaan mustaqbalkooda xilliga ay guursanayaan, marka ay helayaan dhaqaalo ku filan, iyo weliba tan ugu daran oo ah inay u sheegi karaan xilliga ay dhimanayaan. haweenaydan idiin muuqataa waxaa la fadhiya 2 qof oo dhallinyaro ah oo iyagu doonaya inay carruur dhalaan, waxayna u sheegaysaa xilliga ay dhalayaan carruurta. arrintaa ayaa waxay tahay dembi aad u weyn. haweenaydaasuna ma aha mid garan karta 2 qof inay dhalayaan iyo in kale, balse haddana weli waxaa jira dadyow iyagu dadka noocaasa u taga lacagana ku siiya inay u rogrogaan waxay yaqaanaan. dadyowga faalka ku shaqeeya ayaa qudhadoodu waxay u kala baxaan dhowr qaybood. waxaa jira kuwo si gaara u shaqeeya sida haweenayda, xafiisyo gaaroo loogu tagana iska leh. waxaa jira kuwo iyagu aan isu sheegin dadyowga adduunka kana dhuuntaa, garanayana waxay wadaan inay yihiin kuwo been ah, si gaaroo dhuumasho ana u oggolaada dadku inay ula kulmaan, halka ay jiraan kuwo telefishinada ka soo muuqda oo iyagu sheegtay inay leeyihiin awoodo ka weynta dadka bini'aadanka ilaahay siiyey. waxaanuna wada ognahay waxyaabahaasoo dhamme inay yihiin kuwo been oo cad, balse dadyowga adduunka qaybo badan oo ka mid ihi weli waa kuwo aaminsan faalalka. balaynu haddaba eegno saadaalihii hore loo sameeyey, halka ay ku dambeeyeen iyo kuwoodii runta noqday dadyow badan oo adduunka ana ku dhiirigeliyey inay aaminaan dadyowga iyagu faaliyayaasha ah, inta aynaan u gudbin saadaalaha ay soomaalideennu sameeyaan. sawirka idiin muuqda waa barnaamijka lagu magacaabo Simpson. waa barnaamij kartoon oo ka baxa telefishinada dalka Maraykanka, muddo dheerna socday dadyow badan ay ku xiran yihiin. waxaa jiray saadaalo dhowr oo barnaamijka kartoonka sameeyey, dhammaantooduna noqday kuwo uu ku guulaystay. waxaynu soo qaadanaynaa tan ugu horraysa waxa uu sameeyey 1994, waxaana xilligaa laga arkayay qayb ka mida barnaamijka kartoonka ah haweenay iyadu ka shaqaysa iskool, kuna quudinaysa carruurta iskoolkaa dhigata hilib fardeed, xilli loogu sheekaynayo carruurta waalidiintood inay siiyaan hilib lo'aad. arrintaasu xilli dambe waxay noqotay mid dhacday, balse aan ka dhicin dalka. waxay ka dhacday qaaradda Yurub sannadku markuu ahaa 2012. dalka Ireland ayuuna noqday dalkii ugu horreeyey oo ogaaday hambeegarrada ay gadaan dukaamada qaybo badan oo ka mid ihi inuu ku jiro qaybo badan oo ka mid a hilibka farduhu, kadib markii laga helay DNA-ga fardaha. xilli dambena waxaa caddaysay arrintaa dowladda Ingiriiska, waxaana sharaf darro weyn la kulmay dukaamo iyo shirkado waaweyn oo iyagu ku howlanaa inay hilibka qalaan. mar kale isla barnaamijka kartoonka ee Simpson waxa uu saadaaliyey in Donald Trump uu dalka Maraykanka madaxweyne ka noqon doono. qayb ka mid a barnaamijka ayaa lagu arkayay haweenay madaxweyne ka noqotay dalka Maraykanka oo iyadu sheegaysa in madaxweynihii iyada ka horreeyay Donald Trump ay ka dhaxashay dhaqaale burbur. haddaba ila daawada xilliga haweenaydaasu ay sheegaysay in madaxweynihii iyada ka horreeyay Trump ay ka dhaxashay burbur dhaqaalo aad u weyn. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump.
How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. daawadayaal waxaa soo daawateen haweeneydaasu inay sheegtay in madaxweynihii iyada ku horreeyey donald trump ay ka dhaxashay burbur dhaqaale waxaanuna wada ognahay 2016 donald trump in loo doortay inuu madaxweyne ka noqdo dalka maraykanka weli waxaynu ku guda jirnaa saadaalinta madaxweynenimo ee donald trump isla barnaamijka simpson 2015 waxaa qayb ka mida lagu arkayey isagoo dabaalanaya wadana calaamaday ku qoran tahay donald trump 2024 waxaana uu 2015 barnaamijkaasu mar labaad saadaaliyey sanadkan doorashada ka dhacaysa dalka maraykanka inuu ku guulaysanayo donald trump xilligaas ayaa waxay ahayd xilli aanu donald trump damacsanaynba inuu maraykanka ka noqdo madaxweyne waxaanu wada ognahay 2016 inay ahayd markii ugu horreysay donald trump la doortay mar labaadna barnaamijkaas waxa uu saadaaliyey sanadkan isaga in dib loo dooran doono waxaana jira dadyo badan oo maraykan oo haatan aaminsan saadaasha labaad ee barnaamijkaasu inay noqonayso mid saxan innaga daawadayaal waxaa laynooga baahan yahay inaynan ku dayan gaaladaasoo iyagu ah kuwa adduunka la siiyey aakhirana aanay waxba kaga horrayn innagu waa inaynu ilaashannaa aakhiradeenna hadallada iyo saadaalaha ay samaynayaanna aynu dheg ku maqalno dhegta kalena ka saarno sidoo kale barnaamijka simpson waxa uu saadaaliyey 20 sannadood ka hor shirkadda weyn ee filmaanta samaysay dalka maraykanka 20th Century Fox inay gadan doonto shirkadda lagu magacaabo Disney arrintaasuna xilli dambe waxay noqotay mid xaqiiqowday 2007 waxay sheegtay shirkadda Disney inay damacsan tahay inay shirkadda gadato 2022kiina waxay u gadatay si rasmi ah iyadoo xilliga ka bixisay adduun lacageed oo ka badnaa 250 bilyan oo dollar saadaashaasuna waxay noqotay mid kale oo aad u weyn oo ku guulaystay barnaamijka kartoonka ahi sidoo kale saadaalaha waxaa ka mid ah saadaasha ay saadaaliyaan maalinta berriya cimiladu intay noqon doonto ma di'i doonaan roobab dabaylo wataa daadad ma soo geli doonaan magaalooyinka duufaanase ma jiraan waxyaabahaasoo dhammi waxayna tusayaan dadka wax saadaaliyaa mararka qaarkood inay ugu hagaagto balse taasu ma aha aqoon ayna dheer yihiin ee waa laba inay mid kala doorteen marba haddii aad laba mid dooratana 50% waxaad haysataa inaad guulaysato halka 50 aad khasaari karto waana kuwa iska malaawaalaan lahayna ugu toosiyey balse iyagu ay sheeganayaan inay leeyihiin awoodo innaga inaga sarreeyo aan waxba ka jirin haddaba aynu eegno saadaalaha ay soomaalidu samayso inta badan dadkeennu waxay samayn jireen wax la yidhaahdo xidiga tiris xidigaha ayayna sheegi jireen inay ku ogaan karaan waxyaabaha dhacaya iyo saadaashu siday noqonayso sidoo kale waxay saadaalin jireen meelaha ay isleeyihiin markaa waxaa ka da'aya roob ayna doonayaan inay u raraan xoolaha iyo qoysaskooda sidoo kale dadkeennu waxay sameeyaan saadaalo la xidhiidha badda iyo xilliyada lagu safri karo waxay isticmaalaan tirooyin ay kugu sheegayaan inay ka turjumayaan xilliyada baddu ay degan tahay laguna safri karo waxaad maqlaysaa mararka qaarkood baddu waa 17 waa 50 iyo waxyaabo la mid ah sidoo kale dadkeenna qaybtooda dega xeebuhu waxay sameeyaan saadaalo la xidhiidha badda iyagoo kuu sheegaya xilliyada badda ay wanaagsan tahay in lagu safri karo waxay isticmaalaan tirooyin ay kugu sheegayaan inay ka turjumayaan xilliyada baddu ay degan tahay laguna safri karo waxaad maqlaysaa mararka qaarkood baddu waa 17 waa 50 iyo waxyaabo la mid ah marka ay ku leeyihiin baddaas waa 17 ayay ka wadaan baddu inay tahay mid degan doomaha yaryarkaana ay safar geli karaan haddiiba safarkaas uu ahaan lahaa mid ay kalluun ku soo dabanayaan iyo mid ay magaalo kale ku gaarayaan halka markay kuu sheegaan 50 iyo 70 inay gaartay ay farayaan markaa dadyooga doomaha yaryar haystaa in looga baahan yahay inay nagaadaan maalmana sugaan si ay u safraan danahoodiina u gaaraan saadaalaha noocaasa soomaalidu samaysa ayaa waxay u muuqdaan kuwo aad isleedahay dembiye waaweyn kuma jiraan inkastoo iyaga qudhadoodu ay yihiin kuwo ay kugu sheegayaan inay mustaqbalka wax ka ogaan karaan innaguna waxaynu nahay dad islaama mustaqbalka waxa dhacayana waxa ogaan kara waa ilaahay oo keliya sidoo kale waxaa jira dadyo wax ku saadaaliya qaab aqoon ah ilaahayna waxa uu qur-aankiisa inoogu sheegay wixii aynaan garanayn inaynu weydiinno dadka aqoonta u leh waxaana ka mid a dadyowga wax saadaaliya dhakhaatiirta oo iyagu bilaabay ilmaha caloosha ku jira markuu dhowr bilood jiroba inay sheegaan inuu yahay wiil amaba gabar daawadayaal waxaynu soo gaarnay qodobkeenna ugu xasaasisanaa markay noqoto saadaalaha kuwooda dhibta ku haya dadkeenna soomaaliyeed dhowaanta dhallinyarada soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwo ku mashquulsanaa qayb ka mid a saadaashaasoo la yidhaahdo saadaalinta ciyaaraha kubadda cagta waxay dhiganayaan lacagahooda iyagoo isku dayayay inay sheegaan labada kooxooda caawa ciyaari doona kooxda badin doontaa
waxaanuna wada ognahay ciyaaraan wakhtigeedii la gaarin oo aan soo dhammaan inaanay jirin cid saadaalin karta cidda guulaysanaysa balse shirkadaha adeegyada bixiya ayaa waxay yihiin kuwa lacagaha ugu badan faa'iida dhallinyarada soomaaliyeed lacagahooda dhiganayana inta badan waa kuwa la kulma khasaaro tusaale waxaa dhallinyarada loogu sheekaynayaa kooxda ka ciyaarta dalka Spain ee Real Madrid oo iyadu ah kooxda ugu horumarsan gebi ahaanba kooxaha ka ciyaara qaaradda Yurub ayaa habeennimadan caawa la ciyaaraysa koox ka dhisan boqortooyada Sacuudi Arabiya dhallinyaradaas oo dhamina waxay noqonayaan kuwa lacagahooda dhigta in Real Madrid ay guulaysanayso mid waliba oo dhallinyarada ka mid oo isagu lacag dhigtana waxa uu bilaabayaa saadaalo u gaara inta ciyaartaas u socoto imise qof ayaa huruud qaadanaya imise casaan la siinayaa imise koorna ayay heli doonaan rigoorayaal ma ku jiraan tirada guud ee goolashu imisay noqonayaan yaase saddexda dhibcood qaadanaya waxaanuna wada ognahay xilliyadii hore khubarada adduunku inay isku raaceen kubadda midabkeeda in laga dhigo caddaan iyo madow taasoo dadyowga looga digayo in ay wax walba dhici karaan inta ciyaarta lagu guda jiro xilliyadii dambena kubadda midabkeeda waxba laga dhigay midaba aad u fara badan welina waa mid looga digaya dadyowga adduunku inaanay ku khatalmin tusaale kooxda Real Madrid intay ku hawlan tahay la ciyaaridda kooxda Sacuudi Arabiya ka dhisan waxaa dhici kara waxyaabahan soo socda lacagtooduna waxay noqonaysaa mid ay si fudud ku waayaan waxaad ka soo qaadaa mid ama laba ka mid ah ciyaartooyda Real Madrid inay qaateen kaarka cas ciyaartana laga saaray kooxda Sacuudi Arabiya oo dadaalana laba kaloo xidigaha Real Madrid ka mid inay dhaawacyo halis u geysteen kuwaas oo ugu dambeyntii ku khasbay inay garoonka iskaga baxaan laguna bedelo kuwa aan tayo badan lahayn sida Real Madrid waxaa kaga maqan 4 ciyaartooy waxaana 90% adag inay wax guul soo hoydo waxyaabahaas oo dhan ayaa waxay yihiin kuwa dhici kara inta ciyaarta lagu guda jiro marka la hadii aan arrinta tusaale idinka siiyo kooxda kubadda cagta ka ciyaarta dalka Jarmalka Bayern Munich oo iyadoo tan ugu horeysay gebi ahaanba dalka waxaa toddobaadkan ka badisay kooxda Werder Bremen waxay ciyaartaas ku soo gabagabowday 1-0 guushina waxay sidaa ku raacday kooxda yar ee Werder Bremen dadyowga adduunka dhammi waxay saadaalinayeen intaanay bilaaban ciyaartaas Bayern Munich inay tiro goolal badan ku guuleysan doonto dhanka kale dalka Kanadariska yihiin Holland kooxda hogaaminaysa horyaalka kubadda cagta ee dalka PSV Eindhoven ayaa barbar la gashay kooxda yar ee Utrecht waxaana ciyaartooydu ku soo gabagabowday 1-1 dhanka dalka Spain koox yar oo lagu magacaabo Girona oo iyadu haatan hogaaminaysa horyaalka dalka ayaa 5-1 kaga badisay kooxdii weyneed ee Sevilla oo iyadu ahayd koox ku guuleysatay horyaalo badan oo Yurub ah waxyaabahaas oo dhammi waxay noo cadeynayaan ciyaartu inay tahay mid aan la saadaalin karin balse dhallinyaradeenna Soomaaliyeed haatan waa kuwo ku hawlan habeen iyo maalin lacagahoodana dhigtaa inay ciyaaraha saadaaliyaan khayr allahaas iyo culimada Soomaaliyeed oo ay ka hadlaan arrinta dhowr goor waxayna ku baraarujiyeen dhallinyarada inay joojiyaan khamaarka ay ciyaarayaan balse waxa meesha ka maqan doorkii dawladnimo dhibaatooyinka ugubka noocyadan oo kale markii ay ka dhacaan dalkaaga waxa looga baahan yahay dawladdaadu inay tallaabooyin adag qaado tallaabooyinkeedaasna waxa ugu horeeya iyagoo iskaashanaya wasaaradaha waxbarashada tacliinta sare hidaha dhaqanka iyo gebi ahaanba hay'adaha kale ku howlan horumarinta bulshadu in ay qaadaan dagaal wada jira iyagoo adeegsanaya warbaahinta dawladda iyo ta madaxa bannaanba ugana digaya dadkooda in looga baahan yahay inay ka dheeraadaan dhibaatada sidoo kale waxay ka codsan karaan warbaahinta madaxa bannaan gaar ahaan dhallinyarada iyagu wanaagsan ee ka shaqeeya YouTube-yada iyo waxyaabaha la midka ah iyo kuwa kale qorayaasha ah inay arrintaa faafiyaan ugana digaan dadkooda tusaale kale haddaan kaas iyo madaxweynihii hore dalka Mareykanka Ronald Reagan xilligii uu ku dhawaaqay dagaal inuu la geliyo dadka daroogada kontrabanka soo geliya dalka Mareykanka waxa uu dhowr daqiiqado telefishinka kala hadlay gebi ahaanba dadweynaha kala duwan ee Mareykanka waxa uu ku codsaday in dhibaato hor le dalkooda ay haysato laguna magacaabo cocaine loogana baahan yahay inay garab istaagaan dawladooda miyayse kula tahay madaxweyne Soomaaliyeed oo xilkiisa sidaa u gudanaya inuu jiro soo hor fariisanaya dadkiisa kana codsanaya gebi ahaanba dadka Soomaaliyeed inay dhibaatooyinka la dagaalamaan maadaama ay dhibaatooyinkaasu yihiin kuwa dhib ku ah dhaqanka diinta iyo dhaqaalaha dhallinyaradeenna adigaagani daawanaya waxaa jira door kaaga bannaan arrinta muuqaalkan ayaad faafin kartaa waxaadna gaarsiin kartaa 5 qof oo aad kala xiriirto WhatsApp-ka adigoo ugu horreysiinaya xubnaha qoyskaaga iyo asxaabtaada sidoo kale waad ka badin kartaa daawadayaal saadaasha ayaa waxaa loo isticmaalaa sidoo kale markay noqoto khamaarka dadyowga ciyaara khamaarka ayaa iyaguna saadaaliya
bal inay habeennimada ay ciyaarayaan ku guulaysan karaan iyo in kale. waxaana jirta dhowr siyaabood ay u saadaaliyaan. tan ugu horraysa waa inay sii kaxaystaan nin isagu daawo inay sii kaxaystaan ay ku malaynayaan inuu leeyahay khibrad aad u weyn guulna u soo hooyi karo. sidoo kale khamaarka intay ciyaarayaan dadka ciyaara ayay saadaaliyaan. turubka ay ciyaarayaan waxay indhaha la raacaan xilliga la baandhaynayo iyagoo isleh waxaad heli doontaa turubka aad ku guulaysan karto. badanaa turubka waxa ugu sarreeyay jookarka iyo yeekaha, inta badanna dadyowga guulaystaa haddiiba ay helaan labada kaar mid ka mid ah awooddoodan iyagoo isu geynaya ayay miiska ku dhuftaan. taasuna waxay u yeeshaa dhaawac ay dadyowga qaarkood ku saadaalin karaan haddiiba ay doonayaan inay guulaystaan inay ka daba tagaan kaarka turubka ee dhaawaca qaba. waxaynu ognahay turubku inuu yahay warqad marba haddii xooggaaga oo dhan aad isu geyso miiskana ku dhufato uu si iyo si kaleba dhaawac u soo gaarayo. waxaana jira dadyow iyagu saadaaliya in turubkaasuu yahay kanay ku guulaysanayaan. isku soo wada duuboo saadaal la isku dayo in la saadaaliyo waxa dhacaya maalinta berrihi oo aan weli la gaarin ayaa waxay yihiin intooda badan kuwo lagu guuldarraysto aanna u wanaagsanayn dhaqan ahaan iyo weliba diin ahaanba. daawadayaal intaa waxaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni maalinimada maanta oo aynu kaga hadlaynay saadaalaha ay bini'aadamku sameeyaan. waxaan kaa codsanayaa aragtiyahaaga inaad igula wadaagto qaab kommentiya. sidoo kale daawadayaal waxaan idinka raaligelinayaa maalmihii lasoo dhaafay oo aan idiin samaynayay muuqaalo gaagaaban. ii dulqaata daawadayaal, waxaan ahay safar, waxaan ka guurayaa qaarad waxaana u guurayaa qaarad kale. arrintaasuna ma aha midi fudud. waxaanse idiin ballanqaadayaa inaan diba habeen weyn ku samaynayo kanaalka aadna bogaadin doontaan. muuqaalka inoo laygaraya inoona sii sheergaraya. haddii aad weli tahay daawade aan nagu soo biirina ku soo biir kanaalka si aad u daawato muuqaallo midba uu ka sarreeya kanuu ka dambeeyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.